waxaa maanta la soo khatimay wajiga hore ee hawlihii hirgelinta efamyada idaacadda quraanka ee la dhigayay magaalooyinka waaweyn ee dalka. gobolka Sanaag magaala madaxdiisa Ceerigaabo ayaa noqotay magaaladii ugu dambeysay ee laga hirgeliyay idaacadda quraanka. waa kan injineer shaqale oo ku dhawaaqay in idaacaddu hawada magaalada Ceerigaabo iyo hareeraheedaba ku jirto. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan maanta daboolka ka qaadaynaa idaacadda quraanka kariimka ah ee Ceerigaabo. laga bilaabo saacada waxa laga isticmaali karayaa idaacadaasi 88.4.5. wasaaradda warfaafinta waaxdeeda farsamada oo iyadu u qaabilsan fulinta hawlahan ayaan har iyo habeenba ka seexan hawshan hirgelinteeda. waa kan injineer maxamed maxamuud xasan mijir oo ka waramaya magaalooyinka wasaaraddu ka hirgelisay idaacaddan. waxaanu ka soo bilownay idaacaddan quraanka rakibaadeeda magaalada burco ayaanu ka bilownay. magaalada burco markaan dhammaynay waxa ku xigtay magaaladii boorame. labadaasaa muddo shaqaynayay. iminka safarkayagan oo bisha 5teedii aanu kaga soo baxnay magaalada Hargeysa waxa aanu bilownay in aanu gobolada intii hadhay 4 gobol ee kale aanu ku soo xidhno oo aanu qalabkoodii u soo qaadanay magaalada Berbera ugu horeysay oo aanu ku rakibnay. dabeedna burco horu u yaalay waxa ku xigtay Laascaanood. maantana waxa aanu ku xidhaynaa magaalada Ceerigaabo. marka ay 6 gobol sidaa u wada gaadhaan waxa systemka ku xiga ee qorshaha loogu jiro wasaarad ahaan ama departmentka waaxda engineeringka in aanu ku xidhno radio Hargeysa oo aanu ku bilowno magaalada Ceerigaabo iyo Burco dabeetana aanu gaarsiino goboladooda. shirkadda Telesom oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka ayaa qayb weyn ka geysatay hawlaha hirgelinta idaacaddan. waa kan maamulaha shirkadda Telesom ee laanteeda Ceerigaabo Jamaal oo ka waramaya arrimahaas. maanta oo bisha ay tahay 14 bishii shanaad 2014 saacaduna ay tahay 11 iyo 15 daqiiqo ee maalinimo. waxaa insha Allah taala xarinta weyn shirkadda Telesom ee Ceerigaabo maanta lagu rakibay idaacad FM ah. idaacadaas oo ay ka bixi doonto haddii Ilaahay uu garto quraanka kariimka ah. quraankaas oo waxa weeyaan maxay ahayto runtii aad ka dhageysan doontaan maxay ahayto mobiladiina cid walbana ay ka faa'iideysan doonto. arrintaas oo waxa weeyaan maxay ahayto ay fulisay wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa uu maamuluhu sidoo kale mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland gaar ahaan injineeradii ku hawlanaa hirgelinta idaacaddan. sidoo kale mas'uuliyiinta iyo bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ayaa si weyn u soo dhaweeyay idaacadda quraanka kariimka ee Radio Hargeysa kuwaas oo ku tilmaamay in bulshada reer Ceerigaabo ay aad ugu baahnayeen idaacaddan quraanka kariimka. ciise shinaxaashi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo.